Hassan Sheikh Mohamud, President of the Federal Republic. madaxweynuhu waxa uu khudbadiisa ku bilaabay ka sheekaynta dhibaatooyinka ay xilligan dunidu wadaagto sida Covid-ka iyo isbeddelka cimilada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. waxa uu beesha caalamka uga mahadnaqay tallaalka xanuunka safmarka laakiin waxa uu xusay in dalalka horumaray ay markiiba dadkooda siiyeen tallaalka isla markaana aan si siman loo qaybin. Soomaaliya waxa ay soo martay 30 sano oo dawlad la'aan iyo dawlado taag darana iyada oo taa laga ambaqaadayana madaxweynuhu waxa uu xusay in dadaal badan ay ku bixinayaan sidii horumar loo sameyn lahaa. In Somalia, waxaan si hagar la'aan ah uga shaqaynaynaa in aan ka tallawno in ka badan 20 sano oo colaad ba'an, abaaro, macluul iyo horumar la'aan ah, una gudubno waa cusub oo xasilooni, horumar iyo barwaaqo ah. progress and prosperity. madaxweynuhu waxa uu si qoto dheer uga faallooday xasaradaha saddex geesoodka ah ee Soomaaliya ka oogan. abaarta ayuu sheegay in si maalinle ah ay u galaafato nolosha dad badan oo shacabka Soomaaliyeed ka tirsan. dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah abaarta gobolka ka jirta taasi oo si toos ah khatar ugu haysa nolosha qaybta bulshada Soomaaliyeed ugu nugul. sida uu ku waramayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur fadhiga 77aad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee uu madaxweyne Xasan Sheikh ka qayb galay waxa barbar socday dadaalo xoogan oo isdhinac yaala oo ay kala hogaaminayeen madaxweynaha la fahantiisa iyo ergeygiisa arrimaha gargaarka u qaabilsan oo isaguna madax dawladeed iyo kuwa hay'adaha gargaarka bixiyaba isugu jira kulama la qaadanayay. waxa la leeyahay wixii dadaal la bixin kara dawladda madaxweynaha anigoo ergeygiisa gaarka kulli waa bixinay dawladda qaar iyagoo iyo deeq ay ballan qaadeen inay bixiyaan dawladda Mareykanka ugu weyn oo umad celinayna dawladda kale sida Ingiriiska Qatar iyo dawladda kale Talyaaniga ayagana wax ku deeqan waa jiraan kuwa kalena deeqahoodii inay kordhi doonaan marka u warbixinay caasimadooda ku noqonayaan ay noo sheegeen marka rajada waa fiican tahay laakiin wali challengeski aad u weyn yahay wali waa jira aad u jira. In recent weeks, Soomaaliya waxa ay wajahaysaa sanadkii shanaad oo roob la'aana. Arrintaasina waxa ka dhashay abaar qarka u saaran inay macluul isku bedesho. Maalin walba dad caruur iyo waayeel u badan ayaa gaajo ugu geeriyooda Soomaaliya. Musiibadaas oo dhanna waxa loo aanaynayaa isbeddelka cimilada oo ay aadanuhu gacmahooda ku kasbadeen. in Somalia for the first time we've established a new minister of markii ugu horeysay waxa aan dhisnay wasaaradda cusub oo deegaanka iyo isbeddelka cimilada qaabilsan. Soomaaliya waxa ay sanad walba u dhaxaysaa fatahaado iyo abaaro ay sabab u tahay isbeddelka cimilada iyo kaabayaasha dhaqaale oo liita. owing to climate change and poor infrastructure. wasaaradda cusub ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxa ka go'an in si hagar la'aan ay ula dagaalanto wax allaale iyo wixii keeni kara in isbeddelka cimiladu uu ka sii daro. sidaasi waxa VOA u sheegtay wasiirka wasaaraddaasi oo xustay in 4 sano kadib ay higsanayaan in qayb badan oo kamid ah dhirtii la nabaad guuriyay ay dib u soo celiyaan. isbeddelka cimilada waxa aad u muhiimsan waa dalka hadda dhibaatada ka taagan waay dhibaatada kaliya ma ahan amniga dalka waxa dhibaato kale maad ku hayso waxay tahay arrimaha isbeddelka cimilada oo fatahaadka iyo roob la'aanta iyo dhirta la jaraayo waxaana muhiimadda maanta shirkan halka u imaanay waxay tahay New York sababtoo ah inaan gaarsiino dhibaatada maanta Soomaaliya ku hayso isbeddelka cimilada of Al-Shabaab against innocent civilians. Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu dul istaagay dhibaatada ay Al-Shabaab ku hayaan shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa dalalka dariska. waxa uu falalka ay ku kacaan ku tilmaamay kuwa hagardaama ah oo diinta suuban ee Islaamka ka fog. This group which falsely claims to be Islamic blew up. kooxdan ku been abuuranaysa islaamka waxa ay qarxiyeen ceelal baahi weyn ay dadku u qabeen waxa ay gubeen baabuur raashin sida waxayna laayeen dad aan waxba galabsan oo markii horeba la daalaadhacayay sidii ay uga banbixi lahaayeen abaarta ba'an ee maanta dalkeenna ka jirta. tani waa dhagar dhab ah oo ujeedada laga leeyahay ay tahay argagax gelin. of the terrorists and terrorism. In recent weeks, toddobaadadii ugu dambeeyay waxa Al-Shabaab lagala wareegay dhul baaxad leh oo intiisa badan ku yaala gobolka Hiiraan. howlgallada waxa wada ciidamada dawladda iyo dableyda beelaha. tallaabadaas ayuu madaxweynuhu ku tilmaamay mid iyaga oo dawladii ah dhiirigelin u noqonaysa. in a nutshell,
isku soo wada duubo dadka Soomaaliyeed waxay hadda aaminsan yihiin in al-shabaab laga adkaan karo waana halka aan dawlad ahaan ka helayno tamarta iyo dhiirigelinta ku aadan dagaalka lagula jiro argagixisada caalamiga ah. caqabadahaas iyo dhibaatooyinkaas uu madaxweynuhu ka sheekeeyay ayuu xusay inaanay hal dawlad oo kaliya awood u lahayn in ay meesha ka saarto isaga oo madaxda dunidana ku booriyay in ay meel uga soo wada jeestaan. Soomaaliya waxaan leenahay xigmad dhahaysa far kaliya fool ma dhaqdo haddii aan si daacad ah oo wada jir ah u wada shaqayno inagoo dawlado wada socdo ah caqabad ma jirayso si kasta oo ay u weyn tahay waa laga gudbi karaa. arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ayuu sidoo kale hadalkiisa qayb muhiima ka siiyey isaga oo baanka adduunka iyo sanduuqa lacagta dunidaba uga mahadnaqay taageerada dhaqaale ee ay Soomaaliya siiyaan. fursad weyn ayay u ahayd madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu madaxda dunida ka hor sheego mashaakilka iyo caqabadaha ay Soomaaliya wajahayso isla markaana uu dalbado taageerada caalamka ee ku aadan sidii xukuumaddiisu ay uga tallaabi lahayd caqabadahaasi ku horgudban. Jacfar Kukaay